howlgallo ciidamada ammaanka dalka India ay ka sameeyeen magaalooyin ka mid ah dalkaasi ayaa lagu xirxiray ajaanibtii ugu badnayd ee ku noolaa dalkaasi kuwaas oo ay qayb ka yihiin dad Soomaaliyeed oo howlo kala duwan u jooga dalkaasi howlgalka oo ciidanka booliska India ay ka sameeyeen magaalooyin ay ka mid tahay Hyderabad oo ah magaalo ay ku badan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inuu saameyn weyn ku yeeshay Soomaali isugu jiray dad halkaasi u tagay howlo caafimaad dhalinyaro waxbarasho ku guda jiray iyo Soomaali kale oo India u joogay barnaamijyada UN-ka ee lagu qaada qaxootiga ciidanka howlgalka fuliyay ayaa la sheegay in iyaga oo aan kala saarin Soomaalida ay xabsiyada dhigeen cid waliba oo uu ka dhacsanaa sharcigii ay dalkaasi ku joogeen iyada oo kaliya ay ka badbaadeen howlgallada dadka sharciyada ku jooga halkaasi dadka la xiray oo ay ku jireen Soomaali xilliga la xiraya howlo caafimaad ay u socdeen ayaa la sheegay inay keentay in safaaradda Soomaaliyeed ee India ay soo fargeliso arinta dhacday iyada oo naloo xaqiijiyay in safaaraddu ay ku guuleysatay soo siideynta qaar ka mid ah dadkii howlaha caafimaad u joogay India balse ay ku guul daraysatay in xabsiga laga soo siidaayo Soomaali ay qayb ka yihiin dumar iyo sidoo kale dad da' oo sugayay barnaamijyada UN-ka ee qaxootiga la xiriira Saalax Maxamuud Cali oo ka mid ah Soomaalida India ayaa xulashada wararka u sheegay in dadka wali xiran ay ku dayacan yihiin xabsiyada India iyada oo aanay jirin cid u maqan maadaama safaaraddu ay ku fashilantay in dhalinyaradaasi xabsiyada laga soo saaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وين سلامي وفي عنا هاي مقعي واحد يا صالح محمود علي وحن شو ودك هندية والله وحن هاي لأن الصوماليات وهالك خصوصا ماشي مدة كلام عن هاي قحوتي هاني شو ماشى مركا والله وحن يشري قاعد هي ودك هالك اللي باتها كتها وهذا هالك الدجال بقطعيه booliska Hindiya waxay howlgal wax aadi aan haysan waa howlgal weyn sameeyay howlgalkii markay sameeyeen dad badan baa wada way soo qabteen ajaanib isugu jira Soomaali isugu jira dadka isugu jira dadkii Soomaaliyeed soo qabteen xoogoodii markii ay xireen safaaradda waa u tumay soo deysay xoogoodii dad sharci ka dhacsiinay dad ay markaa sharci u xiraysiin waxa si hayeen iyo kuwa qaxootiya safaaradda Soomaaliya waa ay timid dadkiina waa bari way soo deysay ruuxantii aad ugu madayna safaaradda dadku way timid way soo deysay xoogoodii booliska India waxa la sheegay inay indhaha ka xirteen oo ay diideen dadaalada safaaradda Soomaaliyeed ee dalkaasi ay ku doonaysay in Soomaalida xabsiyada looga soo saaro iyada oo sidoo kale ay maqan tahay kaalintii UN-ka oo dadka la xiray badi ay ka diiwaan gashanaayeen tallaabooyinkaas ayaana sii adkeeyay kiiska dadka la xiray oo ay qayb ka yihiin dumar iyo dad da' sida uu sheegay Saalax oo ka mid ah dadka faraku-tiriska ah ee howlgallada ka badbaaday dadka hadda xiran Soomaaliyeed dad far badan weeye walaal ilaa 5 gabdhood baa xiran ilaa 5 wiil baa 6 wiil baa xiran oo Soomaaliyeed baa xiran dadkaasna markii booliska la weydiiyay kaarka la soo bixin waxa waa UN-kana waa dadka wax u qabanay waa lama aysanaa way iska xiran yihiin cid dowladda waa male cid wax u qabanaysan male UN-kana waxa weeye si way ugu wareegayaan waxay ka baqayaan hadii dowladda la sahlan iyaga way baqayaan wax oo gacmahooda baqayo UN-ka awood ku lahaa India sanadihii ugu dambeeyay waxay ka mid noqotay meelaha dadka Soomaaliyeed ay u doontaan adeegyada caafimaad iyo waxbarasho waxaana sidaas oo kale waayihii dambe u boqolayay halkaasi dad u badan dhalinyaro doonayay inay fursado ka helaan barnaamijyada UN-ka ee qaxootiga badan lagu qaado